بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mahad ilaahiya iska leh, nabadgelyana ha kor macnaha degto nabiyullaahi maxamed calayhi salaam وعلى آله وصحابته iyo kuwii maaragtay la saaxiibay iyo waman tabicahum biixsaanin iyo dadkii qurux ku raacay ilaa laga gaaro maalinta khabatiinka. marka waxaan sii wadaynaa meeshaan tafsiirka qur-aanka kariimka ah ee suuratu ahli cimraan. min qablu min marka waxaa waaye markii qofkii la yirahdo war xaggee ka timid wuxuu leeyahay min asumaal ayaan ka imid uu leeyahay. marka dhankaas waa la min qablu macnaha markii la fiiriyo dhanka horay maxaa jiray hudan ayaa jiray. aayadda aan ka bilaabayno waa aayadda afraad waaye ee suuratu ahli cimraan. hudan waa tilmaan waaye, dadku waa iska dhumayaan moogtahay marka waa la tilmaamay waxaa leeyahay war xagga bah linaasi haye saas waaye min qablu hudan linaasi. oo maxaa waaye marka waxaas dadkii hore tilmaanta u ahaa waa soo sheegna waa injiil iyo tawraat waaye. waa kutubkii nabiyullaahi muuse lala soo diray iyo kutubkii nabiyullaahi ciise lala soo diray oo maaragtay ay haystaan dadkaas nasaarada ama dadkaas maaragtay reer banu israa'iil ilmihiisii waa sidaas waaye. wa anzala wuxuu soo dejiyey ilaahay labadii waa lasoo sheegay mugta waxaa lasoo sheegay injiil tawraadna waa lasoo sheegay walfurqaana ayaa la yidhi waa qur-aanka marka kii kala bixinay. inaan fahano waaye yani kala bixinta waa wax aad iyo aad wanaagsan waaye. waxaan ogaan karaa ninka aan wax kala baxsan aanan haysan oo shakiga isaga jira hum fii raybihim yataraddaduun macnaa shakigiisu isaga naga horaaya maanta o dhan meesha ku iskaga daba wareegaya fii fatratin min azaman amin fara badan oo waqtiga ka mid a ayuu saas isaga jiray. marka qur-aanku waxa waaye waa kala soc waa la kala saaray alisaan maaha saan waa alfurqaan. ingiriiskana waxaa lagu dhahaa ereyga oo maaragtay adeegsadaan culumta dadka barta psychologiyada cilmu nafsiga waxay yidhahdaan distinctions waa kala soc saan maaha haye saan waaye sidaas waaye qur-aanka marka sidaas. walfurqaana ayuu soo dejiyey. furqaanka waa maxay? waa qur-aanka kariimka ah waaye. injiil tawraat iyo furqaan kutub kalena waa jira zabuur. in aladiina kafaruu ina marka waxa waaye walle waaye waa wax la hubo waaye. haye aladiina kuwii haye kafaruu qariyey maxay qariyeen? sababta waxay qariyeen astayaasha ilaahi biaayaati illah. astayaalay arkeen waxay yidhahdeen haye ilaahay waa runsanay, rasuulka waa runsanay, kitaabka waa runsanay, waxoo dhan waa wax runahoo jira laakiin waxaan u baahannahay in nala tuso maaragtay astayaal in nala tuso calaamada in nala tuso si runsashadeenna ay u yeelato cago ay ku istaagto oo ay u xoogaysato. marka waa la tusay ilaahay le asaga u ballan qaado wuxuu yidhi sanurihim aayaatina astayaasheena waxaan ka tusaynaa fil aafaaq ayaan ka tusaynaa jihooyinka wa fii anfusihim naftooda dhexdoodana waa ka tusaynaa. waa gartay haye xataa arrintaasna waa wadaynaa ilaahay asaga ballan qaado yatabayana lahum uu u caddaado annahu alle huwa alxaqu dhab waay. inta dadka marka in dad badan waxaa isaga jira shakiyaa isaga jiro waxay leeyihin ilaahay maaragtay maxaan ka naqaan jiray in kale waa iska jira macnaha saasa waxaasa ka buuxa haddaysan si jahri u dhehaynin ya jahran haddaysan u dhehaynin ficilkoodaad ka dareemaysaa waxyaabaha ay ku kacayaan waxaan fiicnayn bay ku kacayaan marka waxay waa saas marka waxaa loo baahan yahay qofku inuu yidhahdo ilaahay waa rumeeyey, rasuulkiisa waa rumeeyey, kutubtiisa waa rumeeyey, malaa'igtiisa waa rumeeyey, wax alaali waxa maaragtay arrimahaas waa rumeeyey. laakiin waxaan u baahanahay ibraahimna waa yiri dad kaleetana waa yiri waan ku celcelinayna arrintan ilaa ay dhacdo. marka ilaahayna wuxuu yiri ballan qaado wuxuu waa lagu tusayaa astayaashii iyo wixii u baahan lagu siinay. marka kuwa markii la tusay kadib haye in aladiina kafaruu biaayaati ilaahi marka sababta ay u qarinayaan ma aha inaysan calaamad arkin iyo aan laga tusin jihooyinka iyo naftooda aan laga tusin ma aha. waa la tusay sababtaas darteeday u qarinayaan. calaamadii markii arkaan ya ilaahay waa rumaynay ilaahay na tusay calaamadihii la tusay sababta calaamadihii marka u inkirayaan ilaahay waxay yidhahdeen calaamadihiisa intii ay ku rumaysan lahaayeen ay ilaahay ku inkirayaan ma fahmaysaa lahum marka kuwaas marka sababta ma taalo wax kale to yaalam jiraan
عذاب إليه حنون شديد وضرم إله نقول والله إلهي عزيز أتكاد واي إلهي أتكاد واي ذو انتقام أو وهلية أرجودش إلهي وهل ويه أرجودش أسأل أرجوتما ذو انتقام واي صاحب وهلية مرك هدي أتري إله وكرمي كتبت هذا ورمي رسول هذا ورمي ما نتدمب إن لسه صار عيو أو لسه حسابنا ورمي جنة إني جرت وأن الجنة حق وأن النار حق وحاسب لهم جرئنيين إلى هو وارون صلي تعصم مد لقى علي إلى إن إيمانك وحوا وفعل وأدي الإيمان استمسك وأسقطت فيه آمن ورمي هذا الإيمان هذا ذلك مركز إله حلده سيد إبراهيم ويري ربني أرني كيف تتكس واحد أبور توس يعني معرفتي حتى مالك الليل أي أرندو قال قالوا تصحي markii lagu tuso darteed waa in runsashadaada xoogaysataa haddii runsashadaada xoogaysan weyso in allahumma salli ala dhibaatad ku sugnaanaysa haddii runsashadaada xoogsatana wanaag baa ku sugnaanay marka laakiin mar walba inaad la imaataa tii ahayd waana jannata xaqun waana naara xaqun waana malaa'ikata maaragta waa rumaysanahay ilaahi waa rumaysanahay kutubtiisa rusushiisa laakiin waxaan u baahanahay daliil taasina mar walba la imaatido ilaahi waa ku tusaya asaa ku balan qaad سنريهم آياتنا في الآفاق هي وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق والله وضع يا حوجاس مجد marka taas waa inay adigu ku sal dhigtaa waa inay ku sal dhigtaa hadii taas ku sal fududayso oo ka qaadid inkiraad aad ka qaadid hada waa lagu ciqaabay hadaad maaragta sal dhigasho aad ka qaadidna waxa waaye liimaan ayaad helaysaa adduunyo iyo mid aakhir labadaba taas إن الله ولا إلهي لا يخفى كما قرسومايا هي شيء ولا حكم قرسوميسو وفي الأرض ألقى كل حجرة ولا في السماء يحتى يمد أرك كل حجرة كما قرسومايا أحب إلهي وعركا موجد وحلابت هذا كجر إلهي وعركا مركات الذي إلهي ورمي يتوس ولا كتوس هاي يعني تساس إن تحركاس يعني كان بقادي يتجيس وعركا هو إلهي الذي كيواي هي إلهي بالرفعنا بركة سوما ساسا جعش واقف أعلم في عوان لأنه حيبا كمية حيابها اللو بهاي أنا سمي واقف هو إلهي الذي كيواي هي يصوركم وإذن كو قابين هي قابوا إذن سمين هي دتك ما رفت هذا بلين تدوبلين عملي قال مين والبصان يقف يقولوا لي هذا اسمه هي إلهي ومركو قابين سمين هي هو إلهي الذي كيوا يصوركم وإذنكو قابينا في الأرحام المقالنكو إذنكو قابينا كيف يشاء صورة كما شيء هذا إلهي هذا ما أحمد أو ما ركتي وحول الرب ما هو حواي وحي حكم ومد حكمة ذي سوا صوتنا محاوس يكون أنا صوت ألا لا إله إلا مجد إلا هو السجى معهني العزيز أتكاد وإلهي الحكيم مرتيله mashiicadiisa iyo qaabku dadka u taswiirinayo oo loo qaabaynayo dadka waa mid ku salaysan murti waa waxayna ku sii salaysan tahay ayadoo quraanka in la isku fasira fiican qofka amalkiisa ay ku xiran tahay shaqo fiican qofkii qabsadana waa maaragtay waa la qurxinay shaqo xun ninkii qabsadana waa la fool xumaynay saas waa هو إلهي أصلاً برشدي سين كجيرنا ذاتكو حيلين هذا إلهي وارميني وأنا الجنة حق وأنا نار حق رسوش إله الرميني إلهي من رميني لكن إن نلا تصو أمبرنه يعني رميني إلهي وكابل هذا هو شيء الله وضع هو إلهي الذي كيواي هي أنزل سودجي عليك كركا وحو كسودجي الكتاب كسودجي بوكي لكن هو ريال هذا منه وحاسك كمد يا ودنكي سكي إيمانا يا آيات أستيال محكمات أو كلا جويناي حيلين هاي سامواي محكمات وأرجع حكيت من حكم كتب وقوان وحلا هاي قبل أن نقول سنة هاي كان مقول سنة وهكذا شغال أنا كشف هنا هاي كان ما كشف هنا وهكذا حزب جان سياسي جان تاجير هاي كاسم تاجير هاي وهكذا نكاني ماركت والحرايا كان ولا سيدينا وحصل حكم محكمات أرجع هذا سوكيهم وكذا جوينيا وحشكي أميش مجرو وأدنى على ترتابه مركت مع آيات كلت وصوا آخرين وحد عني وحيقولوا لها إن هذا الشكل مركت الشكل وحلتكوا ياي محكماتك
iyo furqaanka kala taanta wax iska cad independently ay ingiriisku dhahan wax oo bashaki ba shay Soomaaliduna waxay tiraahdaa eray aan waxa jira la isticmaalo shaki kuma jiro ha wax shaki ah oo ku jira male marka aayadaha quraanka marka kuwa waxa jira noocaas oo kale ah oo shakiba uusan ku jirin wax macnaha mugdi ka gali kara male ninku mugdi ka garana waxa way ku leeyiri la yazugu anha ila halik ma jiro ninka dhuma yaa leeyiri marka laga reebo mid raba inuu asagu iska burburo leeyluha kana hariha la yazugu anha ila halik habeenkeedii maalinteeda isku mid waa iska cadda mugdi ma ka gali karaba waa gar marka aayadaha quraanka waxa kamida aayatun ayaa kamida muhkamatun ayaa noloshana caadiga waa sidaas oo waxyaabo fara badan oo waxa jira aan mugdi aysan ka galeynin gabar waxa jirta marka aragtid aydan ku aragto aysan mugdi ka galeynin inaan si fiican u wada noolaan kartiin iyo mugdi ka jiro wajida marka aan wada marka hunna muhkamaadka kuwa kala go'an hay hunna hay umul kitaabi waay hooyada buuga kitaabka quraanka waxa hooyo u ah oo dhashay oo laga faama oo laga jira waa maaragtay kuwa kala go'an umul qura magaalooyinka waxay leeyihiin magaalo caasimada oo hadda dalka Mareykanka oo Washington DC u leeyahay marka laga hadlayo quraanka caasimadiisa waa muhkamaadka waa xarunta meesha u ah meesha laga duulaayo meesha la cuskanayo ayaga waay muhkamaadku waay qofka insaanka ah noloshiisa caadiga wuxuu ku dabirayana waa muhkamaadka waa wax iska cad waxba shaki kaaga jira mujid shakiga waa wax laga xaraaro waay ya waana soo sheegay arintaas waxa dhaani waadna alla tartaabu hadina warka ku celcelina ma fiicna laakiin marka qaarkood warka waxa loogu celceliyaa lil isbaat inuu suknaada la rabaayo oo u saldhigto oo wadan ilooba tahay al insaan ya ina taas u wadato al insaan waa iska iloobina bari hadana wixii shalay aan sheegnay ma xasuusana taas ana loogu celcelinaa marka waadna alla tartaabu marka sida loo yiri waa qoraal wax qoraal maxad u qoraysiin waadna alla tartaabu أن تكون تجارة تدورينها بينكم صاصبا مرك لقى الرأي جناس معلومة بس كودة تينا سكو جناس وحاسب حول كاتو واقع محكمات وأخر متشابهات كوكلة حجر سكو أكيد متى معها حين معضة وأخر متشابهات وأسكو أجيهما وتشابه تشابه وحكيم ذاتك خارقود قطعت جعشها خارقو ولبستو سديست ولبسنسة تشابه وأسكو أكيسيس موجود marka mutashabihaadkuna waxa waay makaasa ma kala cad oo khor mutashabihaatun waay fa amma alladina fi qulubihim zaygun marka fa amma alladina marka kuwi kuwa marka la raba in la magacaabo fa amma alladina kuwi fi qulubihim laabtooda waxa ku jira hay zaygun ayaa ku jira shid waxa ku jirta zayg waxa waay macnayaal badan u leeyahay laakiin ariga shaki ayuu waa shaki waay shaki noqon kara noqon kara qof oo u nugul inuu dhibaato abuuro ya wuxuu u nugul yahay inuu dhibaato abuuro u nugul yahay wuxuu u nugul yahay in maaragtay shiddu ay shiddu ku yiraahdo waxaan waxba ahayn wax dhibaato ka abuurayn ama ladina fi qulubihim zaygun kuwa laabtooda ay ku jirto shaki ama maaragtay dhibaato abuur trouble makers kuwa la ingiriis yiraahdaan waa kuwa dadka dhibka jecel abuura dab ay iska shirayaan mar walba waa sidaas ama ladina fi qulubihim zaygun laabtooda kuwa ay ku jirto dib abuur hay ama shaki ma waxan fiicnin ay ku jirto hay fayatabi'un ba'di waxay raacayaan hay ma tashabaha minhu wixii isku agay raacayaan waxan iska cad ma aadayaan leeluha kan haari ala yazugu anha illa halik meeshan iska cad ya oo shaki usan ku jirin irtaab wax ku jira isin jirin ma aadayaan hay waxay aadayaan wax isku agay aadayaan fa amma alladina fi qulubihim zaygun shaydaanku marka ay shaydaanku wuxuu aad u jecel yahay dadkaas because wuxuu gelinayaa yani shaki uu gelinayaa شكو مركو قليه مركز وحي راعي وحن كلا عدين مركو ما تقدم واسكده بوريك يعني يتيهون في الأرض 40 سنة تقول يروى أيوه 40 سنة اسكده بوريك يعني موجود كان عكسك إيه أراسك يحصل أنا واساسو إن هذا عارك ساناق وسن كهلين أيضا كهلين أما وحساس يسجلون ما أنت كده بوريك يا ما أنت ما كده أيضا ما كده بوريك مركا مدي اسك عديد ما هذا يعني مدي اسك عديد والشكل وسن كجرين ما هذا كان عكسك أنا واسداس سياسة أنا واسداس وحول بواسداس متشابهات كي جلا يعني محكمات كتاي يا ودت مسوانين يري مع عاصمة ودالك مريكان كان تيجي تولوين اسكتي هذا تولا تكتي دالك مريكان كمان تيجي مجد تولا تكتي دالك مريكان كمان تيجي marka nooga ma sheekin kartid wadanka Mareykanka nooga ma sheekin kartid magaalooyinkiisa waa inama aadan tagin marka waa nin saas oo kale taa way mutashabihaadku iska dabooliyay
ومحي ساس أسمينا الاتقاء الفتنة وحي رادينا يانا للشدة رادينا يعني شدة ضب يبعتوا يوحيني أوران أو ما عرفت حاسي رادينا يعني واساس وابتغاء تأويله وحي كلته ضلمنا يعني وإرادينا يعني هاي إني قرآن كجدي يعني رما إذا إنا فسرنا ربنا أرنتان ها إنا مفسرنا أيان ربنا أي لين وهي قرتي ساسي من كود بأردا يعني متشابهات وحياها سكوا ساسي كود بأردا يعني وما يعلم تأويله قدنتي سمي مؤجانا أيوه ها وفيرس الله أكبر وما يعلم تأويله مؤجانا قدنتي س إلا الله إلهي ما هنتكلم مؤجانيس إلهي ما هنتكلم مؤجانيس نينكي مركز قضية هذا مؤجانا إلهي مركز كوجو إلهامي إسكسو مركز هذا مؤجانيس أنت عسى كم مكان مركز نينك زيغ يشكك وحى حم قلبي يسكو جيران إنه وحى كسف في قلبي فيتبعون ما تشابه وحن وقصف هو بيا صراط وقت يدك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واحد من حكاري بيسا مجد واحد من حكاري إيه مراقبات كلتي أعماشة في عن وحاس وحفي عن إنه سمايا يوقف بحكارة لكن إنك واحد سمايا صلاة عن حل جد كنت كنين أما بقى أنتو كنين زي غاسا جلاي شكي غاسا جلاي بعد يوحو اسكدب الإغانا يا وح أو مجدي وما أنت نكود الوريجا بعد تيهو كجرا تيهو سجرا ترتابو أو اسكشكي سينيا جدا محكمات يوحي عدادانا وكتجي وحي عدادانا وكتجي وما يعلم تأويله معنوينا كجنا ماشان معنى عدل ننكر بينه قدي أصار بينه قدي هذا أسجى مو أجانا إلا إلهي كبير أجانا أسجى مو أجانا مركا أسجى وكله ما يماشي وحبك مكينا مركا وعنا نسكت لبهم وما يعلم تأويله مو أجانا قدنتي إلا الله إلهي ما نعتكل أجانا زي ما جرت هاي أخواني وحكلت والله ربع مركا فسر يسيد واحد قدني يسيد waxaad fiirinaysaa aan soo sheegnay qawaacid hadda aan soo sheegnay iska daba gelaysaa oo ilaahay noo sheego oo ah waxaad marka hore maalmo ku celcelinaysaa ilaahay waa rumay rasuulkiisa waa rumay kutubtiisa waa rumay wa anna al-haqqa naarun wa anna an-naara haqqun mujida wa anna al-jannata haqqun wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ilaahay marka xalad ilaahay tus adiga alla yimin mujida inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim waxaad la timid dadaalka la timid waxaad tiri subax walba waa ilaahay waa saas waa hawshaas waa irtaaytir لكن وحن ربع إن ليحجي إلهي مركز أقوى بالغاض وحليه مالكتي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق موجد وعدك والجوها بي مركي الجوها بي ساسد مالكتي هي السجدة بالجليسة وعقرت وما يعلم تأويله مرك عذيقة والله تصعيا مرك كور هذا ترى هذه هي إلهي ورمي لكن أنا قلت دليلا ربع هي دليل أذي مكيني تقول إن القصية موجد دليل إن القصية marka meela aan kala cadeyn hada daba gasho tira daliilan ka raadina waa dhumaysa adiga macna hawshaada ma taas adiga ma tiri ha ilaahi waasaas rasuulku waasaas anbiyada waasaas iska sug waa lagu toosinay ilaahi hawshiisa asaga ka soo baxay ilaa asaga balan qaaday sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim marka inta laga tusaya banaanka laga tusaya inta kale laga tusaya naftaada laga tusaya ayadahaas markii naftaada dhexdeeda laga tusay iyo banaankeeda laga tusay ayaa waxaad u adeegsanaysaa inaad ku xoojisid iimaankaaga waxaad u adeegsanaysaa oo kaleeto hada iimaanku waxa loogu talagalay nolol fiican adduunka inaad ku noolaatid noloshaada adduunkaada ayana ku noolaanaysaa isla qaacidadaas aan isticmaali kartaa ilaahu xalana marwa ijahal an anjaalahaysi ilaahu shaqo ma aragtay an mafaza fi dunya wal aakhirah an kaheli kar ilaahu isi ilaahu ma aragtay siyaasada ya inaan ka qayb galaan rabaa adduunka meel fiican khaliifan ku ahay meel fiican aan ka dhigay ilaahu ayadan shaqo fiican siyaasad fiican wadaay aan jecelahay inaan waday waana dhici kartaa waa rune ya ilaahu itus wadadii iyo qaabkii iyo wixii hawlahaas lagu habayn lahaa ilaahay waa ku tusay adiga shaqada kan hore laga rabaa ya nid wanaagsan inaad la imaatid iyo inaad la imaatid ma aragtay inaad wixii runsatay ayaa laga rabaa al-iimaan ayaa laga rabaa waa mujid nin hada kor waxa jira caalim Soomaali oo qoray al-iimaan wa atharuhu في الفرد والمجتمع يعني إيمانك واحد عادي ما ورنصشوا لكن وحن كل علنينا أن ربنا إن أرنتان أنا جنا مدفر بدن إجا فقطي وإن أديو مركو هرد ذلك لا إيمان إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مركا أرنتان سوا كل علني وحن كل علنينا وحكلا تماها إن نجد دكتان ربنا إن نجد دكتو أيان ربنا وإن نقطة قيب نلش هنا كاملة هذيك لو أسكي اللوبنا اللوبنا على الإنسان معنيه سوا سدس وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يكوي كحل دراعي في العلم دحل أوغالك كو حاجر أوغالك سيقول دحجرين كحل دراعي كو اسمك وأوجيهين هذه الأيام محي أوجيهين تأويله أي أوجيهين مجد وما يعلم تأويله إلا الله مو أوغانا يالي وفي فعل مضارع واحد هذه كان أساسه كلا تعطي إلا الله والراسخون في العلم راسخون في العلم حتى أوغانا يعني هذا هو رقم موجة
markii la yiraahdo markii la yimaadaan dadaalka koowaad oo ilaahay waa rumaysan rasuulkiisa waa rumaysan